kulanti wacan oo wanaagsan halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkanana waxa qayb ka ah guriga uu degan yahay kulanajiis oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka madaxweyne farmaajona ay qaraabo yihiin oo weerar lagu qaaday kulanajiis oo weerarkaasi ku eedeeyay inuu ka dambeeyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo xiisad laga dareemayo magaalada Dhuusamareeb Fahad Yaasiin oo la sheegay inuu afduubtay odaygii dhaqameed ee soo xuli lahaa xildhibaanka beeshiisa Raaw Xasan iyo digniin loo diray iyo guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle oo soo saaray 13 kursi oo uu ka mid yahay kursiga uu doonayo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir gudoomiye ku-xigeenkii koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha dhamaaday Muudey iyo wasiirka batroolka Soomaaliya oo filla Soomaaliya ay u diiday inay ka mid noqdaan musharaxiinta u tartamaya doorashada ka dhacaysa magaalada Baraawe qodobadaas iyo qodobo kale oo daahson ayaan kugu soo gudbin doonaa wararka dunida TV oo diyaar garooba wacan mar kaleete waqti wanaagsan ayaan hawada in kala halkan waa dunida TV warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar la sheegay in ciidamo hubeysan ay ku qaadeen guriga kulanajiis oo sargaal sare oo ka tirsan niisa madaxweyne farmaajona ay qaraabo yihiin kulanajiis ayaa lagu xusuustaa tillaabooyinkii isxigay ee hay'adda nabad sugid ay qaaday sanooyinkii la soo dhaafay sida dilka Ikraan Tahliil iyo afduubkeedii in weerar lagu qaaday madaxweynayaashii horeete ee dalka iyo in sidoo kale hawada lagu xayiray diyaarada ay saarayeen madaxdii horeete ee dalka iyadoo la sheegay inuu geystay gabadfalo dhinaca bini'aadantinimada ka dhanka hoyga uu ka degan yahay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa laga maqlay habeenkii xalay ahaa rasaas xooggan waxaana la sheegay halkaas in isku farasaareen ciidamo weeraray iyo kuwa ilaalo u ahaa goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamadu ay muddo halkaas ku dagaalamayeen oo khasaare ka dhashay inkastoo khasaaraha rasmiga aan la ogeyn kulanajiis ayaa ku eedeeyay weerarkaas in laga soo abaabulay guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo asaguna howlo doorasho u jooga magaalada Dhuusamareeb waxa uu sheegay in ciidamada oo koox u abaabulna ay ka soo tageen guriga Cabdiraxmaan jeetana ay yimaadeen gurigiisa oo ay weerar ku soo qaadeen waxa uu hoosta ka xariiqay inay iska difaacay weerar uga yimid Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo uu sheegay inuu doonayo inuu qarajiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayuu sheegay inuu doonayo inuu uga aarsado dilkii iyo weerarkii lagu qaaday hoyga uu ka deganaa magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 ka mid ah ilaaladiisa dhanka kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa arintaas iska fageeyay asagoo sheegay inaysan jirin wax ciidamo ah oo asaga ka tirsan ciidanka ilaaliya oo weerar u aaday guriga kulanajiis balse arintu ay tahay mid u dhaxaysa ciidamada dawladda taliska booliska magaalada Dhuusamareeb ayaa hadalka ka soo baxay kulanajiis waxa uu sheegay inuu yahay mid been abuur oo waxba ka jirin taliyaha booliska Dhuusamareeb ayaa sheegay in ciidamada dagaalame ay ahaayeen kuwa ka wada tirsan dawladda sababtuna ay ahayd ciidamada ilaalada oo kulanajiis oo lagu eedeeyay inay geysteen dhac iyo boob ay u geysteen dad hantidiis gaar ahaan inay moobeel ka dhaceen dadka iyo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda oo ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb taas oo keentay shaqaaqada iyo madmadowga xiisada iyo hubka xooggan ee lagu dhex jiro gudaha magaalada Dhuusamareeb ayaa sababtay in taliska booliska ay dhinacyada ugu baaqaan in xaaladda dejiyaan oo ay amniga sugidiisa ka qayb galaan Fahad Yaasiin ayaa lagu soo waramayaa inuu afduub ku haysto saxiixii kursiga beeshiisa odayaasha dhaqanka iyo nabadoonada beesha Raaw Xasan ayaa digniin kama dambaysa ka soo saaray nabadoonka beeshaas oo la sheegay inuu u xareysan yahay Fahad Yaasiin oo hadda u sharaxan kursiga beeshiisa qoraal ay soo saareen 10 ka mid ah odayaasha iyo nabadoonada beesha ayaa cabasho ka muujiyeen in kursiga Hooba 86 ee yaala magaalada Beledweyne
waxayna cadeeyeen in Maxamed Xuseen Axmed oo ahaa suldaankii ama nabadoonkii qabiilka ay u doorteen arrintaasi inuu u saxiixo in afduub looga haysto. odayaasha ayaa nabadoon Maxamed Xuseen Axmed waxay ku eedeeyeen inuu si ula kaca arrimahan u sameeyay kow isagoo ahaa wakiilkii saxiixii doorashadii 2016 wuxuu hadda ku nool yahay goob qarsoon oo aan la garanayn isla markaasna waxa uu diiday codsiyo badan oo uga yimid odayaasha dhaqanka inuu la kulmo ama inuu ka qayb galo shirarka wada tashiga ee looga hadlayo aayaha kursigan. labo inuu muddo 6 bilood uu xariisan yahay musharax ka mid ah musharaxiinta kursigaas gaar ahaan Fahad Yaasiin oo uu qoray si qarsoodi ergo uuna u afduuban yahay asaga. saddex in shirar isdaba joog oo ay yeesheen odayaasha dhaqanka ee beesha uu ka soo baxay Maxamed Xuseen Axmed aanu ku aamini karin masiirka beesha maadaama uu isagu doortay inuu isku dhiibo hal musharax xaqna uusan u lahayn inuu qaado tilaabo uusan u fasixin odayaasha dhaqanka ee beesha oo uusan dhexdhexaad ahayn. waxa ay sheegeen odayaasha dhaqanka beesha Raaw Xasan in odaygii dhaqameedkii afduub lagu haysto uuna qorayo ergo uu soo qortay Fahad Yaasiin. afar odayaasha dhaqanka Raaw Xasan waxa ay go'aan waafaqsan habraaca doorashada dalka ugu baaqayaan in loo madax baneeyo odayaasha dhaqanka Raaw Xasan soo xulidda 5 xubnood ee guddiga farsamada sidaasi ayaana 5 xubnood ay ku soo xuli doonaan ergada gaaraysa 101 mudane. odayaasha dhaqanka ayaa sheegay inay uga baahan yihiin guddiyada doorashooyinka FID iyo SID inay dib u eegaan kursigaasi oo ay sheegeen in Fahad Yaasiin uu doonayo inuu boobo. odayaasha dhaqanka ee soo saaray warbixintan ayaa gaaraya 10 ka tirsan nabadoonnada sida weyn looga yaqaano dadka iska leh kursigaas ee Raaw Xasan kuwaasoo sheegay in kursigooda la boobayo. isla arrimaha doorashada ayaynu ku guda jirnaa guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabelle ayaa soo saaray 13 kursi oo dhawaan lagu dooran doono magaalada Beledweyne. kuraasta la soo saaray waxaa ku jira kursiga uu tartamaya Fahad Yaasiin waxaana la sheegay in la sameyn doono qorshe la xiriira in kursigaasi asaga loo boobo. madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha Hirshabelle ayaa la sheegay in arrintaas ay ka wada hadleen iyadoo magaalada Beledweyne uu ka socdo qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka. 13 mudane ayaan la shaacin waqtiga la qaban doono balse waxaa la filayaa in la soo saaro jadwalkooda rasmi ah maadaama iminka guddigu ay ku dhawaaqeen inay dhawaan qaban doonaan. afilla Soomaaliya iyo Fahad Yaasiin ayaa dhabarka u jeediyay siyaasiyiin ay ku soo shaqaysteen 4 sano ee la soo dhaafay. gudoomiye ku-xigeenkii koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Mr Mudee iyo wasiirka batroolka xukuumadda Soomaaliya Sheekhaalo oo filla Soomaaliya waqti badan saaxiibo la ahaa una soo ansixiyay hurgumooyin iyo hagardaamooyin dalka ka dhana ayay iminka karkaarka weydaariyeen. kuraastooda ayaa lagu dhawaaqay iyadoo aan wax doora la siin waxaana la sheegay in tartanka laga reebay. arrintani waxay walaac xoogan ku abuurtay siyaasi Mudee iyo Sheekhaalo oo isku arkaya inay yihiin shakhsiyaad si weyn saameyn ugu leh doorashooyinka oo farmaajo soo saari doono. in karkaarka la weydaariyo labadan shakhsi waxaa la sheegay inuu ka dambeeyo Fahad Yaasiin oo doonaya kursiga uu ku fadhiyo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Mudee oo uu doonayo inuu u tartamo Fahad Yaasiin si uu u noqdo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka. arrintan ayaa sidoo kale la sheegay in door weyn uu ku leeyahay madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo Farmaajo. tilaabadan ayaa hadday hirgasho waxa ay sawir guud ka bixinaysaa amaalka iyo amaalgudka Fahad Yaasiin iyo Farmaajo maadaama dhammaan siyaasiyiintii uu soo dhintay ee waqtiga adag la soo qaatay ay kabcilaa uga dhaqaaqeen. warka aad ka daawanayseen Dunida TV waa intaas sidaas nabadgelyo.